dawladda waxaan leeyahay far badan baa idinku godan qarankanna meel dheer baa laga soo saaray qarankan meel dheer baa laga soo saaray waxaan idin leeyahay farta idinku godan social media waxaan ku arkaynaa waxyaalo badan oo hadallo lahaayeen ilma adeerayaal waxaan idin leeyahay qaranka halkii laga soo saaray ha ku celinina cabdiraxmaan hoodaale madaxweynaha qiimaha leh kulmiye maanta waa xisbi mucaarada halkan soo istaagiisa iyo kelmadda uu ka yiraahdaa annaga waxbay noo taraysaa oo waxbaanu ku saxaynaa xumaan u qaadan mayno cuqdad u qaadan mayno dhibaato u qaadan mayno bal waxaanu arkaynaa inay galdaloolooyin aanu lahayn saxayaan aad iyo aadna waan idinka mahad celinaa hadaa wax naga saxdaan waxaan ku faraxsanahay dawladda tayadeedii iyo cilmigeedii iyo qualificationskeedii iyo experiencekeedii wadata ee sidaa u soo wada gashay guul baan leeyahay halkan laakiin meel ka sarraysaan in adeer kula doonayo dagaal adag bay in adeer wada galnayo meel saraan kula doonayay laakiin waxaan ku leeyahay allaha kugu guulaya xilka lagu igmaday maanta meel ka wanaagsan uu cabdiraxmaan qaban lahaa ma jirto inuu ku asturo xilka mudanayaal iyo marwooyin waxaa idinku salaamayaa salaanta islaamka oo ah salaan la isku salaamato ugu qaalisan oo waxaa idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh intaa kadib madashan laygu casuumay aad baan horta ugu faraxsanahay ilaahay subxaana wa tacaala bana mahad iska leh waa la wada hadlay hadalna ma hadhin laakiin in yaru baan ka hadlayaa labada nin ee goobta jooga labaduba waa garbahayga alxamdulilaah cabdicasiis taariikhdiisaan ka sheekaynayaayo halkan hadal baa la yidhi madbacaddu cunaha lagaga duubnaa horta waxay madbacaddiisa aan u shaqaynaysay ee weliba daacadnimadu ku dheenay waa nasiib darro waxaan leeyahay cabdicasiis walaal sidaad ummadda ugu shaqaysay ee dadka ugu shaqaysay ee dalka ugu shaqaysay waxaasaan qabtay lama idhaaye miisaanka xasanaadka allaha kuugu daro waxaana sheegaya cabdicasiis wuxuu ahaa nin ummadda u dhibirsan oo akhlaaq iyo diin iyo xishood intaba ku sifaysan waxaan ku leeyahay walaalo hankaagu ha dhaafo halkaad maanta taagan tahay biidnillaah ilaahayna waxaan kaaga rajaynayaa guul iyo gobonimo insha allahu raxmaan xildhibaanna waad u sharaxan tahaye garabkaagaanu taagannahay ilaahay idamkiisa intaa markan ka baxo cabdiraxmaan abeesna waa walaalkay waxaan aad iyo aad kuugu hambalyeynaa xilka lagu magacaabay horta allaha kugu asturo halkan laakiin meel ka sarraysaan in adeer kula doonayo dagaal adag bay in adeer wada galnayo meel saraan kula doonayay laakiin waxaan ku leeyahay allaha kugu guulaya xilka lagu igmaday waana kuu ducaynayaa kullukum raaci wa kullukum mas-uul can raaciyati qof walba waa mas-uule waxaa mas-uuliyad lagaaga dhigay inaad halku cabdicasiis keenay meel ka sarraysa aad sii gaadhsiisid insha allahu raxmaan yaan kuu rajaynayaa intaa kadib in yar baan odhanayaa dawladda halkan fadhida maanta dawladda waxaan leeyahay far badan baa idinku godan qarankanna meel dheer baa laga soo saaray qarankan meel dheer baa laga soo saaray waxaan idin leeyahay farta idinku godan social media waxaan ku arkaynaa waxyaalo badan oo hadallo lahaayeen ilma adeerayaal waxaan idin leeyahay qaranka halkii laga soo saaray ha ku celinina intaasaan kaga baxaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa waa bogaadin iyo duco inamada wanaagsan ee xilka la wareegaya cabdiraxmaan iyo cabdikariin waxaan u mahadnaqayaa cabdilcasiis oo isaguna booska u banneeyey waxa maanta farxadii ah anigu halkan maanta kuma joogo keliya inaan wasiir ku-xigeen ahay laakiin halkan waxaan ku joogaa anigoo ka mida qoyska ree aadan cismaan xaaji faarax waa qoys xorayntii somalilanna ku suntan dawladda maanta hoodaale cabdiraxmaanna ku suntan allahu akbar
الله أكبر. عبد الرحمن هذا له مدحوينها قيمة له. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ما أنت ومشاهدين تنالا صومها هلك وحى فديا إسماعيل آذن عثمان حاج فرح يا إلك وذيرك وها ودولة عبد الرحمن عقها ودقي ومشاهدين هلكنك طوانك السنة صوتك على ما يين كرسيك وكفرستان وحن إلهي وغبر يا ما أنت ملك وأنا أكسر عبد الرحمن قبل لها ما شرتين وقاس تروح لك وعن كفر أحسنها هاي دولة تيادي يا علم قادي يا كواليفيكيشنز كادي يا اكسبيرينس كادي ولا تا اسلا وصوا لك شيء قول بالله يا هاي قول بالله يا هاي قول بالله يا هاي بإذن الله مطبعة هلكي قاعدة لو وينو أركي دونا تدكي علمك صاحبك وها تدكي شرفك سومالي لانو صاحبك ها أباسي إسماعيل باك تاغن مالا إن شاء الله ودوتي مايو وحنالكم كوشوغا مانتا هذين يا مدحوينها قرن كينو سيو بوسيشن كاقيمها ليلك يا قول إن شاء الله دولة عبد الرحمن حنسيني ما يسكن نقطة ما يسكن فريسة هذا هو تالي دايي آديات بدو مع سنتين ماريها عصب مطبعة قرنك ماريا كحيجينك كسمه ماري هراء مطبعة قرنك لما أنتود وأنت عينما أنت حفلته ده هل كانوا تشوجنه مسؤولين تقرنك إن جلسوا قريب قري حفلته وزير ده حلبانا ده قرنك هوين وينها رئيس ماليلان آد يا آد أشفرن أبلن وعن شعله يرت حفلتنا نوقف إيديسو إنهم فرين جارة سلام جارة أو محبة له حبلها رئيس سوماليلاند أي مثلاً أنت هالكم فردي داودرو هداني هالكا يجوا شوقين وحبا بينو هانين ولا ليال حكومة ما أنت ينول دسم حكومة مدن مدحوين عبد الرحمن محمد عبد الله وحكومة كأستيسن إن يبلشة يسقطوا وحكومة أردسن إن أنا يدتك حزبية كلا نقن قبيلة كلا نقن أي نقدان ضد إسله وعكور هيسان وهجي هراء أنكو عن معارض خيراهين قاضي كل بيه هل شيء بانو كافي عنين هل كي شيء أنو كافي عنين وحنو شعل ما أنت هنا نديبو سو إن نصحنه هل كي شيء أنو كافي عنين وحي هاي بدلها نوع كلاية اللي يسوي ما دو قاضي كل بيه وحي شعلان شرين هذه شرين يجوا وضح الله أنك لكن أنا نحضل وحزبيات معارض كا ما أنت وحنا أقلي أو أنا ولي بتشعلي إن كويرة هذا الكه قالوا كل مين هذا الكأوبة دي الصو أيام شعلان لي وحن سداول لي كل مين ما أنت وحزب معارضة هل كان سو استاجيسة هي كلمة وكيل هذا أنك وحبي نوتر يسايو وحبي نقص حينا حمان قادن ماينو عقدة قادن ماينو dhibaato u qaadan mayno bal waxaan u arkaynaa inay galdaloolooyin aan u lahayn saxayaan aad iyo aadna waan idinka mahad celinaa hadaa wax naga saxdaan waxaan ku soo gabagabaynayaa hadalkayga maareeyaha cusub iyo maareeyo ku xigeenka ilaahay waxaan uga baryayaa inuu xilka ay maanta qabteen ku asturo golaha wakiilada iyo madbacadda qaranka shaqo weyn baa ka dhaxaysa
shaqada weyn waxa u horeysa in madbacadda qaranku sharcigii ay ku shaqayn lahayd xeerkii ay ku shaqayn lahayd inaanu ka wada fadhiisanno kala shaqayno xeerkaasi sidoo golaha wakiilada uga soo bixi lahaa hadii alla idmo aad iyo aadna waad u mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.